Marka dib loogu noqdo safxadaha taariikhda, waxaad arkaysaa daawada in dhulka maanta loo yaqaano Iiraan saldhigna u ah Shiicada in uu ahaan jiray hoggaanka imbaraadooriyadii la odhan jiray Faris oo ahayd waqtigeedii mid ka mid ah labadii boqortooyo ee ugu tunka weynaa adduunka, boqortooyadii Ruum iyo Faris. Kadib markuu soo baxay Islaamku, waxay boqortooyadii Faris ka mid noqotay dhulalkii uu Islaamku gaadhay, waxaana ka soo jeeday asxaabo lagu tirin jiray saxaabadii ugu muhiimsanaa Islaamka sida Salmaan al-Farisi. Laakiin wuxuu noqday dhulkii Faris kadib 800 oo sano oo uu ahaa dhul Islaam ah, haystana madhabka Sunniga ah, mid isku bedela madal gaashaan u noqota Shiicada. Haddaba maxay yihiin Shiicadu, maxayna ku kala duwan yihiin Sunniyiinta iyo Shiicadu? Shiicadu waa madhabka labaad ee ugu dadka badan madaahibta Islaamka, waxaana lagu qiyaasaa dadka haysta madhabkan 320 milyan oo qof, waxayna muslimiinta adduunka ka yihiin 20%. Ereyga Shiica waxaa laga keenay Shiicatu Cali oo micnaheedu yahay raacayaashii ama taageerayaashii asxaabigii weynaa ee Cali bin Abi Taalib. Shiicadu waxay aaminsan yihiin in Cali bin Abi Taalib yahay hogaamiyaha saxda ah ee Islaamka, nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee dabadii. Shiicadu waxay u kala baxdaa dhowr qaybood oo leh xogaa kala duwanaanshiyo ah. Dadka aaminsan madhabka Isnaa Cashariyada ah ayaa kuwa ugu badan Shiicada. Tirakoob la sameeyey 2019 ayaa lagu ogaaday in 70% ilaa 80% Shiicada caalamka oo dhami ay ku nool yihiin 4 waddan ee kala ah Iiraan, Ciraaq, Hindiya iyo Bakistaan. Guud ahaan Shiicada waxaa loo kala qaybiyaa 3 waaxood oo kala ah Isnaa Cashariya, Ismaaciiliya iyo Saydiya. Kadib dhimashadii suldaankii Cusmaaniyiinta Maxamed al-Faatix ee furtay magaalada Istaanbul, awoodna u yeeshay in uu fidiyo dalalkii ay khilaafadu ka talinaysay, ayaa waxaa bedelay inankiisii Bayasiid oo ahaa hogaamiye ku suntan cibaado iyo alla ka cabsi oo aan u janjeerin dhanka siyaasadda. Ayaa xilligiisii waxaa aasaasantay dowlad la oran jiray Safawiyiin, taas oo ka aasaasantay dalka Iiraan. Xilligaasi Iiraan madhabka ugu badan ee ka jiray wuxuu ahaa madhabka Sunniga ah, gaar ahaan madhabka Shaaficiga loo yaqaano, waxayna Shiicadu ku koobnayd 4 magaalo oo kaliya oo ay ugu muhiimsanaayeen Khuraasaan iyo Qum. Sanadkii 1501 ayuu ku guuleystay Ismaaciil as-Safawi inuu dhidibada u taago dowladii Safawiyiinta, wuxuuna sanadkii 1508 la wareegay magaalada Baqdaad, arrintan oo ka dhigta mid garowsada in xilli aan fogeyn ay isku dhici doonaan khilaafadii Cusmaaniyiinta oo xilligaasi maamuleysay dalalkii Islaamka. Arrintan oo ka dhigtay Ismaaciil as-Safawi mid ka fikira sidii uu ugu beeri lahaa dadkii Iiraaniyiinta arrin dareensiin karta in Iiraaniyiintu ay ka sareeyaan Carabta inteeda kale, aysanna dhici karin inay hoos tagaan. Wuxuuna ka fikiray samaynta madhab diineed ka soocan madhab diineedkii ka jiray dalalkii Islaamka waqtigaasi, gaar ahaan madhabkii dowladii Cusmaaniyiinta, si Safawiyiinta iyo Cusmaaniyiintu ay u kala noqdaan dad haysta 2 madhab oo aan shaqo isku lahayn. Waxaana dhacday in habeen ka mid ah habeenada uu isku yeero dhammaan mas'uuliyiintii dowladii una sheegay inuu shaacin doono in dhulalka Faris laga bilaabo madhabka Shiiciga, gaar ahaan madhabka Isnaa Cashariyada ee aan kor ku soo sheegnay, uu noqon doono kan laga aaminsan yahay dhulkaasi. Wuxuuna maalintii xigtay oo ahayd maalin Jimco ah aaday masjidkii magaalada Tabriis isagoo ay weheliyeen 100 ciidamo ah, wuxuuna ka shaaciyay masaajidkaas in laga bilaabo maanta madhabka dhulka uu ka talinayo oo dhan uu u bedelay madhabka Shiiciga. Dabcan dadkii masaajidka ku sugnaa ee ka soo horjeestay uu dilay, wuxuuna sidaas si rasmi ah ugu bedelay dalkii Iiraan mid Shiici ah. Waxayna fureen iskuulo sidoo kale madaaris lagu horumarinayo madhab, waxaana xilligaasi lagu daray eedaanka masaajida oo dhan oraahda ah Caliyun waliyullah oo maanta aad ka dheehan karto eedaanka Shiicada. Waxayna wax caadi ah ka dhigteen caayida iyo gafida saxaabadii soo bareed ee nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee.